xafiiska warfaafinta ee Al-Shabaab ayaa soo bandhigay sawirada weerarkii ay ku qaadeen saldhigga ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ee deegaanka Camaara, halkaas oo ay Al-Shabaab ku sheegatay inay ku dishay ilaa 35 askari. Weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Camaara oo ku bilowday qarax xooggan ayaa dhacay aroornimadii hore ee shalay, waxaana kooxda Al-Shabaab u suura gashay in ay gacanta ku dhigaan magaalada Camaara inkastoo saacado uun kadib dib looga qabsaday. Al-Shabaab ayaa sheegatay in dagaalkaas ay ku qabsatay ilaa 18 gaari oo ay ku jiraan gaadiid casri ah oo ay wateen ilaalada gaarka ee madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Kaariye Qoorqoor, waxaana sidoo kale ay sheegeen in ay qabsatay hub iyo saanad ciidan. Sawirada ay soo bandhigeen ayaa waxaa sidoo kale ku jiro meedad ay sheegeen inay yihiin ciidamada dowladda, inkastoo aysan jirin ilo madax bannaan oo xaqiijin kara arrinkaasi. Balse sawirada ay soo bandhigtay Al-Shabaab ayaa waxaa laga dhex arkayaa ilaa 4 gaari, kuwaasi oo laga qaaday sawiro dhinacyo badan si loogu muujiyo inay yihiin gawaari aad u tiro badan. Ma cadda in Al-Shabaab ay weli haysato baabuurtaas iyo in kale, maadaama magaalada dib looga saaray kadib markii ciidanka dowladda federaalk Soomaaliya ay dib weerar ay ku qaadeen gudaha magaaladaasi. Taliska ciidamada militariga Soomaaliya ayaa sheegay in duqeyn ka dhacday Camaara lagu dilay ilaa 90 dagaalyahan oo ka tirsan Al-Shabaab, sida lagu sheegay qoraal lagu daabacay barta Twitter-ka.